kulan lagu soo bandhigay xeerka ilaalinta deegaanka oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada ee dowladda Puntland ayaa lagu qabtay magaalada Buuhoodle xarunta gobolka Cayn. Kulankan waxaa ka soo qayb galay madaxda heer gobol iyo heer degmo iyo bulshada qaybaheeda kala duwan, waxaana kulankan looga hadlayay daryeelka deegaanka iyo ka hortagga nabaad guurka iyadoo lagu soo bandhigay buugga ka hadlaya xeerka ilaalinta deegaanka. isuduwaha wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada ee dowladda Puntland Cabdilaahi Jaamac Ismaaciil ayaa bulshadii ka soo qayb gashay kulankan waxa uu u qaybiyay buugga barashada cilmiga deegaanka kaas oo ka turjumaya xeerka ilaalinta maareynta deegaanka ee Law number 5 oo ay soo saartay wasaaraddu. waxaa ugu horeyn halkan ka hadlay duqa degmada Buuhoodle Shawr Cabdilaahi Maxamed. dhinaca kale waxaa halkan ka hadlay isuduwaha wasaaraddaasi oo faahfaahin ka bixiyay muhiimadda kulankan. Law number 5 runtii buuggan maanta la qaybinayo horteyda yaala waa buuggan in badan sugaynay. runtiina gobolka Cayn marka laga hadlayo gobolada Puntland wuxuu kaga beegan yahay gobolka dhirdaaqsimeedka leh xoolo dhaqatada ee ugu badan iyo guud ahaan Soomaaliba. maadaama aynu taa ugu jirno waxaa muhiim ah oo aan laga maarmaan ahayn in aynu ku dadaalno ama aynu dadka uga jilicsanaano ilaalinta dhirta iyo deegaanka. waxay soo saartay xeer lagu dhaqmayo oo muddo dhan la daba joogay ansixintiisa oo madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdilaahi Deni uu saxeexay dhaqanka baarlamaanka dowladda Puntland kaasoo la rabo ku dhaqankiisa si looga hortago dabargoynta dhirta ugaadha iyo waxyaalaha bilicda deegaanka ah. waxaynu haysanaa dhul carradiisu ku fiican tahay bixitaanka. sidaa darteed buuggan idin hor yaalla waxaa ku qoran waxaa soo diyaarisay wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada wasaaradda deegaanka beeraha isbeddelka cimilada ee dowladda Puntland waxay soo diyaarisay cid kasta oo ku dhaqan goboladan Puntland mid dheer iyo mid dhowba inay gaarsiiyaan ka hortagga xaalufka. wuxuu ku qoran yahay firqooyin ayna ka gaari karin. intii aan u sheegi lahayn aragtida ayaan waxaan u diyaarinay inaad ka akhrisataan buugtiina cid kastoo akhri karta. waxaa ku yaala xeer la yiraahdo Law number 5. Law number 5 waxa weeye xeerka ku xukumida ku xadgudbaha deegaanka ee lambarkiisu yahay 5. xeerarka Puntland ee xukunka ay ka soo saartay 4 xukun baa ka horeeya. sidaa daraadeed amniga iyo caafimaadka iyo kuwaas baa ka horeeya. xeerkani waa xeerkii 5aad. waxaa loogu talagalay dhaqangelintiisa in la daadajiyo lana gaarsiiyo bulshada ku dhaqan gobolada daafeeda kala duwan. inagu maanta ayaan nasiib u helay. waxaan idin farayaa mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan idin farayaa buugga inaad ku taxartardaan oo cidkii aan akhriyi karin ay gaarsiiso ciddii akhriyi karta. xeerka leenoogu yeedhay waa mid wacan. ciddii wadamaha lagu taageero waana halan la qaato halana la shaqeeyo wixii igana magana hala gaarsiiyo. salaam alaykum. ooda inagmooda eke ooda ha laga daayo oo nabaad guurka ha laga daayo oo dhirta xumaynta ha laga daayo. waxaan hadalka ku soo dhaweynayaa hawsha waa taageeraynaa raallina waa ka nahay xeerkana waa qaadanay. haddii ilaah kuu rooyaa aan kulligeen u wada guntanno sida dadkeen u hagaagi lahaa. waxaan codsanaynaa in lagu wacyigeliyo bulshada oo intani waa dad kooban waa odayaashii intii deegaanka waxyeelaysay ama mujtamacii faraha badnaa in intaa ka badan loo qabto oo loo abaabulo oo la isku wacyigeliyo oo guri kasta iyo geed kasta la gaarsiiyo. ahaana anagu waxaanu sameeynaa insha Allah taala inaanu bal ka howlgalno oo u saarno guddi cilmi baadhiseed dabeetana deegaankii la falgasho wacyigelin samaysa. arrintaana waan fulinaynaa. cuqaashana waxaan ku dardaarmayaa cuqaalay deegaanka idinka u ah madax idinka u ah maartay hormuud u ah iyo ciidamada qalabka sida waxaan leeyahay qofkaad fahmi weydaan
cuqaasha u gudbiya gacan bira ku qabta deegaankan ka wada shaqeyna insha Allah inoo yaala aad baan sidee wax lagu dheefayba lagu dhibaatooy dhuxul aad la haysaa raggii dhamada weynaaye dhiil caana ku raniyo dhabi kirulkeed inagu naqaanayaan la inoo sharxinay inagu aan istaba qabanno oo sida la sheegay biyahan iska qulqulaya digadii qaadaya ciidii labeenta ahayd qaadaya dhulkii oo dhan xagaafaya wada walba aan ku joojino biyaha dhulka aan ku celin inta deegaanka iyo maareynta dawladda Puntland waa muhiim xeerkani inaynu ilaalino deegaankeena oo aynu ka ilaalino xaalufinta oo aynu ka ilaalino wax kasta oo damage gaaraya deegaanka noloshu waxay ka bilaabataa deegaanka haddii aan deegaanka ilaalin weyno inaguna noolaan karmayno deegaanka laakiin maxay ilaalin karaa oday ma ilaalin karo shakhsina ma ilaalin karo laakiin maamul baa ilaalin kara haddaan maamulka laga shaqayn oo ciidamada cusub ee booliska ee tababaran ee soo socda aan lala shaqayn waxay noo hagaagi maayaan ugu dambeyntii kasoo qaybgalayaashii kulankan ayaa soo dhaweeyay xeerkan ay soo saartay wasaaraddu waxayna hoosta ka xariiqeen inay xeerka dhaqan gelinayaan isla markaana ay gaadhsiinayaan cid kasta oo dhibaato ku haysta deegaanka وعلى عثمان سعر الأكثر وركرها هذه تلفزيون SBC بوهولة